kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin khiyaarta aanu hawada ku saaxiibnay meel kasta oo dunida aad ka joogtaan halkani waa qaarada TV oo aalabaad kala socotaan wararka caalamka gayiga Soomaalida guud ahaan geeska Afrika qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan hadduu Rabbi idmo waxaa kamid ah xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba Soomaaliland waxaan sidoo kale qodobadeena ku qaada dhigi doonaa hadduu Rabbi idmo General Saciid Maxamed Xirsi waa General Morgan oo booqasho ku jooga magaalada Laascaanood oo isla markaasi booqday meelihii xasuuq ugu badnaa uu ka dhacay bilihii inoo dambeeyay oo isla markaasi ciidamada SNM ay gabi ahaanba ku xasuuqeen dad shacab ah oo u badan haween iyo caruur waxaana eegi doonaa waxyaabihii uu halkaasi kala kulmay iyo waliba arrimaha xasaasiga ah ee qarsoon ee generaalku uu halkaasi u joogo qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa daqiiqadaha soo socda halkan kaga bogan doontaan daawadayaal balse intaan u gudagelin wararkeena nagu soo biiro channelka subscribe saar isla markaana naga mid noqo muuqaalkana like saar asxaabtaadana la wadaaga si uu gaaro saaxiibo badan mahadsanid haddii aanu ku horeyno xaaladda magaalada Laascaanood ayaa toddobaadkii inoo dambeeyay aad xasilooni looga dareemayay mara jirin wax shaqaaqiye dagaal ah oo halkaasi ka socday toddobaadkii inoo dambeeyay dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqnaa walow ay ka qaxeen 3 bilood ka hor kadib markii dagaalkii kharaara uu halkaasi ku dhaxmarayay ciidamada difaaca SSC iyo kuwa SNM oo iyagu isku daygooda iyo hadafkoodu ahaa in gabi ahaanba gacanta ay ku dhigaan maamulka iyo gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee istiraatiijiga isla markaana xarunta gobolka Soola hase yeeshee dadka shacabka ah ayaa gabi ahaanba isaga qaxay kadib markii halkaasi xasuuq baan ay ciidamada SNM ugu geysteen dadaal u tira badan oo markaasina ilaa iyo dhowr kun oo qof lagu qiyaasay dhimashada tan iyo waqtigii dagaalku bilowmay dadkan oo dad rayid ah ayaa gabi ahaanba isaga haajiray goobihii ganacsi iyo meelihii ay ka degnaayeen magaalada Laascaanood magaalada ayaa kaliya waxaa ku soo haray ciidamada difaaca SSC oo kuwaasi oo gabi ahaanba beeneeyay go'aankii SNM isla markaana kaga qabsaday dhowr saldhig oo waaweyn kuna yaalay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee ciidamada SNM 20 sano inoo dambeysay ay iyagu gacanta ku hayeen ayaa si xoog ah looga farmaroojiyay waxaana meesha ka baxday dawladnimadii iyo quwadii iyo kibirkii Muuse Biixi Cabdi uu sheeganayay isla markaana uu doonayay in reer Laascaanood iyo gabi ahaanba dad kale oo markaasi Soomaaliland gudaheeda ku dhaqan uu xoog ku maquuniyo waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo qolooyin kale oo isu soo bahaystay hase yeeshee tala ayaa gacantiisa ka baxday mucaaradka Soomaaliland beesha caalamka iyo waxgaradka gabi ahaanba beelaha Soomaaliland ayaa ku fahmay in arrinkani uu isaga mashquulinayo doorashadii la rabay inuu qabto sanadkan gudihiisa maadaama waqtigiisu uu soo dhamaaday isla markaana uu dambiye faleed waaweyn ka geystay gudaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu isku ilaalinayaa xilhaynta hadduu wuxuu og yahay xilkaasi laga qaado ama doorasho la qabto uu ku soo bixi waayana in gabi ahaanba maxkamadda lagu qaadayo ayuu og yahay oo xasuuq baan uu ka geystay dhowrkii sano ee madaxweynaha uu ka ahaa Soomaaliland dawladda Mareykanka oo si dhow ula socota xaaladaha iyo dhaqdhaqaaqa uu ka sameeyo Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland ayaa gabi ahaanba waxa ay soo dhaweysay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan isku soo dhawaanshaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ergeyga waxa balse shuruudo uu Mareykanka iyo waliba beesha caalamka ay uga dhigeen in aan loo baahnayn waqti xaadirkan Muuse Biixi in la xaajoodo maadaama muddaxileedkiisii uu dhamaaday loona baahan yahay doorashada in si degdeg ah uu qabto Muuse Biixi isla markaana la xaaltami doono ergeygaasi uu la xaaltami doono madaxweynaha markaasi ku soo baxa xilka hase yeeshee arrinkaasi waxaad moodaa Muuse Biixi inuu iska dhiga tirayo oo uu doonayo in dadka uu ku mashquuliyo kuna maaweeliyo dagaalka uu kula jiro SSC oo horaantii uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa iyaguna si weyn uga hormaaday xaaladda Muuse Biixi Cabdi uu ka wado gudaha Soomaaliland waxa ayna sheegeen Muuse Biixi inuu yahay qof dambiile beenaala ah isla markaana ku been abuurtay dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah isla markaana shacab kuna tilmaamay inay yihiin argagixiso waxayna dhaheen isla markaasi waxa loo baahan yahay doorasho degdeg ah in laga qabto gudaha Soomaaliland si isla markaasi xilka looga tuuro xukuumadda oo haatan hogaaminaya Muuse Biixi Cabdi oo falal dambiyeedyo waaweyn oo carradaasi ka badan ka geysatay gudaha Soomaaliland tacadiyo kufsi iyo dil xaq sharci darro ayaa gabi ahaanba Soomaaliland ka socotay sanadihii uu madaxweynaha ka ahaa Muuse Biixi Cabdi
24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxaa haysatay Axmed Muuse Biixi Cabdi waa wiil u dhalay Muuse Biixi isla markaana jiida hore ee dagaalka ee Gooja Cadde ku sugan oo uu diray aabihii inuu booqdo ciidamada halkaasi joogo si ay dhiirigelin iyo moral uga helaan imaashaha wiilka madaxweynaha iyo sidoo kale General Saciid Maxamed Xirsi General Morgan oo isagana dhanka Puntland ka imaaday oo markaasina ku sugan magaalada Laascaanood ee xasuuqii ugu badnaa uu ka socday bilihii inoo dambeeyay saxaafadaha ama warbaahinada Soomaalida ayaa si weyn u hadalhaya labadan mas'uul ee ka kala yimid Somaliland iyo Puntland maadaama ay si iyagoon waliba is ogeyn magaalada Laascaanood ay midbo dhinac ka soo galay toddobaadkan soo socda waxaa la filayaa dagaalkii ugu cuslaa inuu dhaco oo isla markaas lagu kala baxo xeradan Gooja Cadde cabsi weyn ayay ciidamada SNM ka muujinayaan imaashaha General Morgan oo markaasi la sheegay in uu kala yimid dhanka Puntland gawaari dagaal iyo ciidan aad u tiro badan isla markaana haatan uu ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool imaashaha General Morgan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaha Somaliland ee uu ku celceliyay in badan inay kamid tahay dagaalkan dabada dheeraaday ee ka socda Laascaanood inay waxa hurinaya ama hubka keenaya ay yihiin dawladda Puntland waa sida isagaba uu sheegay General Morgan oo socod lug ah ku maray qabuurta ama boholeynta magaalada Laascaanood ee xasuuqa ba'an uu ka dhacay bilihii inoo dambeeyay ayaa waxa uu ku tilmaamay tani inay tahay mid gabi ahaanba bini'aadanimada ka baxsan waxa uuna wacad ku maray in isaga qudhiisa iyo ciidamada uu Puntland kala yimidba ay gabi ahaanba isku tuuri doonaan xerada Gooja Cadde isla markaana ay noqon doonto dagaalkan Puntland iyo Somaliland maadaama in badan Muuse Biixi uu ku soo celceliyay oo afka uu kala dhamaan waayay in Puntland dagaalka ay qayb ka tahay iyadoo loo yahay in Puntland aysan dagaalkan shaqo iyo shuqul midna ku lahayn ayaa waxa uu bilaabay xabadii koowaad ee uu ku qaaday magaalada Laascaanoodba inuu dhaho Al-Shabaab iyo Puntland ayaa isku soo kaybahaystay waxaana gabi ahaanba beeneeyay hadalladaasi madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deri oo isagana sheegay in aysan dagaalka ku jirin balse hadii loo baahdo oo isla markaasi ciidamada SNM ay isaga bixi waayaan xerada Gooja Cadde iyo magaalada Laascaanood oo duqeen iyo xasuuq aad u badan ay ka geysteen in dagaalka Puntland ay hargal cad soo gali doonto waxaadna moodaa hadalkii Saciid Cabdullaahi Deni in gabi ahaanba uu dhawoobay kadib markii General Morgan oo aad iyo aad ay Soomaalida u taqaano isla markaana halgamaa weyn oo dagaalyahana uu maanta dagaalka si toos ah ugu soo biiray isla markaana uu ciidamada la yimaaday magaalada Laascaanood oo dhibaatada ugu badan ay ka jirtay dhanka kale Axmed Muuse Biixi waa wiilka uu dhalay Muuse Biixi Cabdi oo jiida hore dagaalka uu u soo diray aabihii ayaa waxa ay ku tilmaameen saadaaliyaashu mid wax ka bedelaysa inaysan ahayn dagaalka ama hawsha socota waxayna sheegeen inay tahay mid uu ku shirqoolayo ciidamada SNM Muuse Biixi Cabdi oo uu doonayo kaliya in niyadda uu ugu dhiso waxaana toddobaadkan uu qorsheynayay in asaga qudhiisa madaxweynaha uu yimaado xerada Gooja Cadde ee ciidamada SNM xasuuqa ba'an ay ka geysteen hase yeeshee xaalada jiro iyo abni la'aan awgeed ayuu wadnaha u soo siin waayay waxa uuna isla markaas iska soo hormariyay oo uu yiri niyadda u soo dhis ciidamada oo soo fiiri wiilka isaga uu dhalay